Dabkan ayaa waxa uu ka kacay isgoyska Balaaksi degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Goobta dabka uu ka kacay ayaa ahaa goob ganacsi oo lagu iibin jiray shidaalka noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale goobo kale oo ganacsi. Ganacsatada qaar ee goobtan gubatay ku ganacsanayay ayaa waxa ay sheegeen in dabka uu ka dhashay shidaal halkan lagu dejinayay. Waxayna sheegeen in khasaare kala duwan uu ka dhashay iyagoona aysan jirin ilaa iminka wax ku dhintay dabkaasi khasaaraha kala duwan geystay. Wuxuu ku bilowday shidaal la shubayay. Shidaalkaas oo ahay basiin. Basiinkii markii la dhameeyay oo lagu dhameeyay shubidii ayaa fuusta qaraxday boodi. Fuustadii dhibaatada iyo dhibka noo geysatay. Oliya baqaarka ku jirtay, lacag cadiina ku jirtay, waxa ku jiray sharciyaal dhulkii ku jiray, sharciyaal dhulkayga ku jiray oo 16 boos. أنا دالك وروي العك كاشة كوتشي دولار كوتشي إلى على إسكساري إن أنا كبدي حياة ربي شلي ما كبدي حيوه بنانك واحد تيل لبها نود أو بحضور شدالة ها أنك حتى ماشي ما يعلن عاجي هايين وذي كذا ماشي وحارنت أما كعاجي مذوبة أو بحيلو لا شو بين حياته سبتدي هذا دبعت هذا بعدي وذي كذي إلهي سبحانه وتعالى يا الله بندق وحكى الله سبحانه أنت إذا ماشي كوبا بعد مركي يراتو شدال كيلي wuxuu ahaay konton fuus oo nafta banaanka ay tiiri 20 fuus oo basiinka la shubaayana maxay ahayd waxa ka cayntaaba wax yar iska ahaay waa gubteen waxba ma ka cayman saasay ku baabeen hada waad u jeedin antida meesha taal antida meesha ku gubata hada u yaraato 78 waa qiyaasta sabarloogyada ku gubtay kaliya 16 sabarlooga ku gubatay 16 sabarlooga ku gubatay oo maanta meel loo raadsan kaashka 45 milyan ku jirto oo kaasha $1800 ku jirtay waxa kala shidaal iyo oliyo waxa xisaabnay ahaayeen oo tirada ka batay oliyo ku jirtay basiina ku jiray nafta ku jirtay ama ka banaanka way buuxeen mid waa la shubaayo way gubatay waa u jeedin dhibaatada dareerka u gaartay waa u jeedin gurigan wuu gubtay waxaana sabab ahaa booyad 10 litir oo basiin ah waday matoorkeeda oo aan wiilka inta ka warsi qaldan ah u kiciyay matoorka naga dhaaf oo yiri waa sax markii wax yar ka dhaqaaqana oo guriga iyo matoorka isla kacay gubashada saasa sabab u ahayd waana qadar Allah nagu dhacday alxamdulillah shukr rabbil caalamiin saare aad culus aan u gaaray qasaare aad culus aan la soo koobi karnaa u gaaray laakiin meel adduun waa la helaa nafsa lama helo waxa ilaahay maadiisa maanta inay sanaf waxba iga gaarin علي تلي عبد الشبيلة TV جوهر.